بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. ضمان أرضي الصومال ستار أونلاين ترينين English language and computer teaching عشرة كلا دونا أيام لسه مركا 10 كي ليسن 72 بانر كدونا مركا أرضي كلا دوان صومال ستار أونلاين ترينين أرضي كوكالا نولا الدنيا دا يصوماليا قبل هذا كلا دوان سيدا مقديشو هرجيسا بوساسو قالكايو يكسمايو بيدابو أرضي كلا دوان وجوكتا وحان كوسو دويني ضمان صومال ستار أونلاين ترينين أيقول لسه حريري دونا direct number وانا انجينير waxaan ahay bari 10 imtixaanaha marka laysan 72 baan kasi qaadi doonaa waana 10 step by step 10 u baranayna Somali Star Online Training meel walba adduunka ka joogaan bugi practice and progress baan sii mareynaa laysan 72 waan arkaynaa marka ekar gaari kole lagu yeero bluebird la yiraahdo gaari magaciisa la yiraahdo bluebird way 10keena ciwaankiisa marka waxaan soo gadayaa 10kii aan soo gudagalayaa si fiican u dhageystaa the great racing driver darawalkii weynaa Britain-ka the great racing driver Sir Malcolm Campbell la oran jiray darawalkii weynaa Britain-ka Sir Malcolm Campbell la oran jiray Sir Malcolm Campbell was the first man waniga ugu horeeyay to drive ku kaxeeya at over in ka badan 300 miles per hour 300 meel saacadiiba he set up wuxuu dhigay ama uu taagay a new world record cusub adduunyada ah in September 1935 September markay ahayd 1935 at Bonvilla Falatis Ota meesha la yiraahdo ka dhigay Bluebird gaariga la yiraahdo Bluebird the car waa gaari he was driving uu kaxeynayay had been especially siqaasa build ayaa loogu dhisay oo lagu sameeyay from him asiga it was over wuxuuna ka dheeraa 30 feet 30 feet in length xagga dhererka and had iyo 2500 horsepower engine wuxuu lahaa motor awoodiisu leeg tahay 2500 horsepower engine motor awoodiisu ay leeg tahay 2500 engine oo horsepower waa aalad wax lagu cabiro marka although inkastoo Campbell la yiraahdo Richard uu gaaray speed xawaare of over ka badan 304 miles per hour saacadiiba 304 meel he had great difficulty wixii mushkilad kala soo gudboonaatay marka in controlling inuu maamulo ama controlo the car gaariga because sababtoo ah a tire ayaa basti dilaacay during the first run fagaxdii ugu horeysay during intii lagu guda jiray the first run fagaxdii ugu horeysay after kadib his attempt isku daygiisii Campbell la yiraahdo was responded wuxuu ka niyajabay to learn inuu ogaado that his average celceliskiisii speed xawaarihi celceliskiisii inuu ogaado had been inuu ahaa 299 ama 299 miles per hour saacadiiba however si walba ahaato few days later maalmo kadib he was told waxa loo sheegay that taasi a mistake qalad had been made in la sameeyay made waa make oo kale his average speed celceliska xawaarihiisana had been inuu ahaa 301 miles per hour saacadiiba 301 meel since that time ilaa iyo waqtiga racing tartanka darawalada have reached waxay gaarayeen speed xawaare of over in ka badan waxaa la gaarayay 400 miles 400 meel an hour saacadiiba following his father's footstep raadka aabihii many years later sanado badan kadib Sir Malcolm's son wiilkii Sir Malcolm Donald la oran jiray also sidoo kale set up wuxuu dhigay a world record cusub like his father sida aabihiis oo kale he was driving wuxuuna watay a car gaari kole lagu yeero Bluebird lagu yeero waa barashada English language and computer teaching step by step ardayda kala duwan Somali Star Online Training waa 10 kala duwanaa marka waxaan la soo xiriireynaa haddii aan isweydino 10 English language waxaan la soo xiriiri doonaa page-keena oo macalinka magaciisa ku soo gudgaleynaa muhiim oo org.wordpress.com Mohamed org
wordpress.com baan ku soo gudgali doonaa wixii macluumaad halkaas aan ka sii raadin doonaa annagoo macluumaad halka ka heli doono wixii faahfaahin sida darteed casharadii barashada English language and computer teaching iyo step step casharada loo qaadanayo casharada computerka qaydihiisa kala duwan iyadoo security laga hadlayo Linux iyo security Android-ka iyadoo laga hadlayo cashar kala duwan oo Windows ku saabsan marka sida darteed buuggii practice and progress ayaan ku jirnaa marka step by step lessons baan qaadan doonaa marka casharada kala duwan ardayda haday isweydiyaan waxay la soo xiriiri doonaan Somali Star Online Training page-keeda sida darteed casharada in step step ay u soconayaan waan ku soo celinayaa marka casharkii haddaan qaadanaynay marka casharkeennii ugu dambeeyay ayaan ku soo celinayaa a car gaari called loogu yeero bluebird ayaan ku jirnaa a car gaari called loogu yeero bluebird loogu yeero the great racing driver darawalkii weynaa ee Britanka Sir Malcolm Campbell la oran jiray Sir Malcolm Campbell was the first man waa ninkii ugu horeeyay to drive ku kaxeeya marka at over in ka badan 300 miles 300 mile per hour saacadii he set up wuxuu taagay a new world record cusub in September 1935 September markay ahayd Bon Villa Selt Falatis Otah meesha la yiraahdo Bluebird gaariga watana waa Bluebird the car gaari way Bluebird ka marka he was driving watay ama uu kaxeynayay had been especially si qaasa build ayaa loogu dhisay build marka meego kala waa si qaasa loogu sameeyay from him asiga loo sameeyay it was over in ka badan 30 feet in length xagga dhererkana wuxuu leekaa dhererkiisa 30 feet and you had a 2500 horsepower engine wuxuu lahaa motor 2500 horsepower waa aalad wax lagu cabiro marka although inkastoo marka Campbell la yiraahdo rigid uu gaaray speed xawaare of over ka badan 304 miles per hour saacadiiba 304 mile he had great difficulty waxay mushkilad kala soo gudboonaatay in controlling inuu maamulo the car gaariga because of the tire ayaa Soomaalidana tire bay iska tiraahdaa a tire ayaa best dilaacay during intii lagu guda jiray the first run fagaxdii horeba after kadib his attempt isku daygiisii Campbell la yiraahdo was disappointed wuxuu ka niyay jabay tuleen inuu ogaado that his average speed xawaaraha celceliskiisii had been inuu ahaa 299 miles meel ahaan per hour saacadii however si walba ahaatay a few days later maalmo kadib he was told waxa loo sheegay that had a mistake in qalad had been made la sameeyay his average speed xawaaraha celceliskiisana had been uu ahaa 301 miles 301 mile per hour saacadiiba since that time ilaa waqtiga racing baratanka driverless darawalada have a rigid waxay gaarayeen speed xawaare of ka badan marka over ka badan 400 miles 400 mile an hour saacadiiba following asoo raacaya marka his father's footsteps raadkii aabihi asoo raacayo many years later sanado badan kadib Sir Malcolm son wiilkii Sir Malcolm Donald la oran jiray also sidoo kale set up wuxuu dhigay marka a world record cusub like his father sida aabihiis oo kale he was driving wuxuu watay car gaari called loogu yeero Bluebird loogu yeero waa Somali Star Online Training English language and computer teaching idoo ardayda kala duwan casharada kala duwan qaata ay la soo xiriiri doonaan casharadii taxanaha oo aan kala soconay Somali Star Online Training step u barta marka dhammaan ardayda Soomaaliyeed meel walba adduunka ka joogtaan ardayda gobolada Soomaaliya ku kala nool iyo ardayda adduunyada daafeeda ku kala nool si siman ayay u wada heli doonaan waana injineer Maxamed Bari casharadiisii taxanaha step by step wala soco Somali Star Online Training adoo la soo xiriiri doona direct number ama WhatsApp noo soo diri kar sida darteed fi amaan Allah wa salaamu calaykum wa rahmatullahi وبركاته.